السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانت ويدي سلامي كسور دوادا محمد كرسي ميديا حلقة دروا حلقة دي سديدات waxaynu soo gaarnay mar allaalay markii jasiiradda la yimi xilqadii toddobaad waxaynu kaga hadlnay jasiiradda iyo wixii ku kalifay inuu jasiiradda imaado jasiiraddu sida u eg tahay design ay u taallo waxaanu kaga hadalnay jasiiraddu halkay ku taallo waxa kale aynu kaga hadalnay inay jasiiraddu mid yar iyo mid weyn ahayd oo taweynata xafladuhu ka dhici jireen ay tahay tayarna shaqaalaha la dejin jiray waxa kale aynu soo aragnay in sababta jasiiradda loo yimi waxay ahayd waxaan maanta haddaba xilqadda sideedaad ku eegaynaa meesha wixii ka dhacay baynu kala qaadqaadaynaa marka horti so far waxaan doonayaa dib inaan ku yaro celiyo maxaynu haynaa oo imika la sii daayay isbuucii hore 3.5 milyan oo document micnaheedu waa maxay documentiga laga sii daayay Jeffrey Epstein wuxuu u qaybsamaa 3 nooc waa sawiraan fiidiyoyo iyo qoraal codna raaci haddaad doonayso okay sawiraan iyo fiidiyoyo wixii qoraala ii soo qabo qoraalku markaa laba uu sii kala baxaya qoraalku wuxuu u kala baxayaa wax maxkamad ka qortay oo kiisaskii hore ee uu soo galay iyo maxkamadii hore uu soo maray ay ka qoreen iyo dadkii markhaatiyada ahay marka wax laga qoray iyo isagu wuxuu qoray amba email ha ku diro amba boos ha ku diro amba chat telephone ha ku diro ama boosta ha ku rido wax allaale wuxuu ninku qoray ayaa la sii daayay waxaan u maleynaa yaro fahansatiin filmaanta looyarinta haddaa yaro daawataan haddii qofka aad haysaan kuu dhiibo faylal aad u fara badan waxaa la dhahdaa drowning wuxuu doonayaa inuu ku hafiyo inuu informationka kugu hayo ku hafiyo marka horta imika dadweynaha adduunka waxa lagu hafiyey waxaanay ka bixi karayn 3.5 milyan oo document baa lagu sii daayay hal mar waqti dheer bay dowladda Mareykanku faylashan haystay waxa ka daran faylalka waa meelo waxa marsan xariiq madow dowladda Mareykanku waxay leedahay xariiqda madow waxaan ku ilaalinaynaa xuquuqdii dadkii ahaa dhibanayaasha waxa kale la mariyay qalanka madow dadku la xidhiidhay qaarna waa laga daayay arrimahaas iyo documentka mar dambe aynu tegi doonaa laakiin waxaynu ka soo qaadanaynaa imika xilqadda sideedaad ka soo qaadanaya waxa weeye emailisku ninka Epstein diri jiray waxa la yaab leh haddaba emailka koobada inoo soo qabanaya waxa la yaab leh ninkani markuu emailada diraayo ay dadka wada sheekaysanayaan waxay ku wada hadli jireen code waxaan ka wada shifrad iyaga u gaara aqli gal maaha adiguna waad garanaysaa aniguna waan garanayaa inaanan ku odhanayn ilmihii yaraayad rabtay inaad waxa ku samayso waa diyaara u kaalaysaa cad hebelow inaanan ku odhanayn aad wada ogtahay waxa jiray markaa koodhar uu kula hadli jiray dadka dalabaadka uu fulinayo koodharku waa kuwan FBI baa macnaynaysa hotdog ereyga hotdog horta ereyga ugu badnaa wuxuu noqday pizza waxaan eegay website-kii file-kii baan geliyey 844 jeer buu ku soo noqnoqday ereyga pizza emailada Epstein Jeffrey Epstein bal haddaba sidoo FBI u macnaysaan isla eegno amba qolooyinka gacanta ku hay waxa la yiraahdo hotdog ereyga hotdog oo ah cunada inay yaqaan street-ka lagu iibiyo waxa laga wadaa boy customer-ka u soo qora Epstein amba qofku email-ka u diro Epstein ee ereyga hotdog lagaga dhex doodo email-ka dhexdiisa waxa laga wadaa in loo jeedo in la diyaariyo pizza waa inan cheese oo ah dee subagii micnaheedu wuxuu noqonayaa little girl waa inan yar wey da'da haddaba inta badan kusoo ururtay waxa weeye inta u dhaxaysa 14 17 11 14 da'ahaasaa aad dadka maaragtay victimiska ah lagu sheegaya inay da'du ka koobeen pasta waa little boy waxa weeye inanka yar ice cream iyo walnut waxa weeye waa dadka yacni colorka ah dadka cadaankii dadka kale waxa u yaqaanaan colors iyagu cadaankoodu waa cadaan laakiin dadka kale waxa loo yaqaanaa color people marka koodharkan waxay ahaayeen koodharkii Epstein iyo dadku isku weydaarsan jireen arrimaha xasaasiga marka laga wada hadlayo oo marka maaragtay ku qorantay meeshii pizza lagama wada hadlaye inan yar oo minor la rabaa in la ballamiyo oo dee hawsheedii la gala la rabaa waxa weeye arrimaha cajiibka marka arrinta aan shifrad lagu wada hadlaa arrin cusub maaha ciidanku u adeegsadaa
dad wal oo maaragtay maafiyadu way adeegsataa dad wal oo maaragtay marka waxay meesha ka saaraysaa in dee lagugu qabsado war cad oo de waxa weeye anigu maxaan ka waday su-aashu wey marka waxaad ka waday allahu aclam de waxaa kale xilqadaha dambe aynu ka wada hadli doonaa emailada ugu interestika badan leh in la sheegayo in loogu tegay guryihiisii iyo baadhitaanadiisii sawiraantiisii qidcad ka mid ah qimaashka amba kiswatulkacba kacbada maradan madow ee la huwiyo oo dee nusuus iyo gabayaal iyo aayado carabiya ay ku qoran yihiin in qayb ka mida inta loo gooyey hadiyad ahaan loogu geeyey bal siday u gaadhay iyo halkay qisadaasi ka timi iyadan waxaan ku eegi doonaa xilqadaha dambe iyadana xilqad gaaraan kusoo qaadaya laakiin abistiin markaad eegto waa caalam dhan oo isku xidhan oo in badan laga soo shaqaynayay aad iyo aad baa idiin salaamaya waa inoo xilqada sagaalaad